حياتي قرآن. رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن، اشرح صدري قرآن، املأ قلبي قرآن، واسع حياتي قرآن. يا نور يا نور يا محكم يا تنزيل لمحمد عن جبريل من رب العرش دليل للعالمين. إنه إلهي سبحانه وتعالى إنما نقول أهل القرآن. runtii fadhiyadu way badan yihiin, xafladaha ka dhaca adduunkana way badan yihiin, laakiin xafladda ugu qaalisan ee qofka ka soo qayb galaana ilaahay subxaanahu wa tacaala miisaanka xasanaadka uu gelinaya ajir aan la xisaabi karin waa xafladan oo kale. xafladan oo kale waxaa ka soo qaybgelaysa malaa'ig, waa la isugu dembi dhaafaa sida rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu sheegay. xitaa qofka aan qalbi wahayna iska yimaada dadka wanaagsan ee meesha yimid buu ilaahay subxaanahu wa tacaala ugu dembi dhaafayaa. walaalayaal, wax ka farxad badan ma jiro oo wax ka wanaagsan ma jiro. waxaan arkaynaa awlaadeenni oo kitaabka ilaahay subxaanahu wa tacaala saa u akrinaysa. ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaa laynoogu talagalay qofka mu'minkaa waxaa loogu talagalay sida markuu gaajoodo oo cunto la-aan uuna u joogi karin inuu maalintii iyo habeenkiiba ay noloshiisa qayb ka mida noqoto qur-aanku uu qalbigiisu u noqdo ayaa loogu talagalay. nolosha dhabta ilaahay noo abuurtay subxaanahu wa tacaala ayaa taa aha. idan haddii saaka adan qureecan ooda qalin cashar aan kol lama joogi kartid. qofka mu'minkana saasaa loogu talagalay hadday yaray adaan weynahay. waxaan raacin lahaa runtii ilmaha keli ahaa inaa juhdigan sidan ugu badan keliya gelin innaguna aan gelin hooyooyinka oo kitaabkeena aan la noolaano. intii taqiinina ha ku sii dadaasho, intaan aqoonina ha ku dadaalaan insha allah inay maaragtay kitaabka ilaahay ay bartaan, tilaawadiisa iyo camalfalkiisana aan badino. rasuulku wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam mathal buu ka bixiyey fadhiyadan oo kale, fadhiga wanaagsan iyo fadhiga xun. fadhiyada sidan u wanaagsan oo kale meelahan oo kale qof ka soo qayb gala wuxuu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu la mid yahay yacni qof haddaad u timaado oo kale miski iibinaya ama cadar, saddex qodob mid unbaad ka dhexlaysaa ood ka helaysaa. inuu ku siiyo ood wanaaggii udgoonkii haleesho, iyo inaad ka iibsato, iyo in fadhiga iska ag fadhida meeli cadarku diilo udgoon iyo wanaag kaa soo raaco. saddexdaa mid unbaad ka helaysaa. masalka kale ama tusaalaha kale rasuulku bixiye calayhi salaatu wasalaam waxa weeyaan waa fadhiyadan fadhiga kasoo horjeeda oo ah fadhigu dirarka iyo meelaha xunxun. waxay la mid yihiin fadhiyada kale ilaahay subxaanahu wa tacaala xuskiisa aan lagu haynin, sida qofka muufaha dabka ah sameeye ee beeraha tumo oo kale. haddii aad ag fadhiisato ama maradaa kaa gubanaysa ama or iyo qiiq iyo maaragtay samboor baad ka soo qaadaysaa. fadhiyadan oo kale marka waa fadhiyada ugu wanaagsan ee loo baahan yahay qofka mu'minka inuu badsado, uu aamino inay ilaahay subxaanahu wa tacaala agtiisa xasanaad iyo ajir weyn uu ku leeyahay. waxaa sharaf ugu filan qofka qaariga ah iyo qofka qur-aanka akhrinaya iyo macallinka iyo inta barato oo dhanba inuu rasuulku yihi calayhi salaatu wasalaam khayrukum man tacallama alqur'aan wa callamah. sharaf ka weyn ood raadin lahayd ma jiro. in lagu yidhi qofka ugu khayr badan ummadda waa qofka qur-aanka barta dadkana sii bara, darajo ka weyn ood raadin lahayd ma jiro. waxaa sharaf iyo darajo ugu filan qofka macallinka ahaa iyo qofka qur-aanka bartay ee ku camalfalaya intaba inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala khalqigiisa kuwa ugu karaamada badan ee ugu wanaagsan darajadooda ilahay uu ku gaadhsiinhayo. oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku gaadhsiinhayo inaad malaa'igta la mac noqoto da darajo noqoto. darajadan waxaa lagu gaadhaa qofka qur-aanka ilaahay xafida ee haddana caamilka ay ku camalfalaya maca safarati alkirami albarara ayuu rasuulku yihi calayhi salaatu wasalaam iyo maceed ahaanhaya. waxaa darajo ugu filan qofka qaariga ahaa iyo qofka qur-aanka ku dadaalaya, iyo sharaf waxaa ugu filan
إنه إلهي سبحانه وتعالى وقرنها يا قرآن كسيدة الدنيا وسو آخرنا يسأل بالله ترتيبنا أول قرن أسعى درجات كادو وماشي إقرارنا ما تعاد وضم بس آيات كالسقط آخرنا هذا هو ترتيب آخرنا هي درجة الوسين هي انتهي الدرجات اللي كان أرمها إنسان بناءك لرسولك عليه الصلاة والسلام وحكدقي إنه نقفنا أكثر وناهين قفك القرآن كإلهي أنا قولين إننا شرط أقولين إنه يهوال مرب رسولك عليه الصلاة والسلام من نوشري إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن برسولك عليه الصلاة والسلام قفك جوف كيسي قلب كيسي وح قرآن ونكجر وحول مليه كالبيت الخريب سيدي قولي الدواء وكالول مليه قلب النور معها قلفوف كادم بددكو في سنهيان قف النور متيت قفك مؤمن كان نورشي سير روحيسو وين القرآن كلا نورادو وهبين يدار وآخريو ويسوي علميس يقوليس يا صاحب ليبا وكود داره حالتك سو كجرو إلهي سبحانه وتعالى هاي نغدغو هو قلب وضو قرآن كلا نوراد إلهي نغدغو هو نبي محمد عليه الصلاة والسلام ناش القرآن كتاغنا يسدو نبي محمد وسو قدبي أصحابتي وسو قدبي سو قاتل فوقات الله نغدغو إلهي سبحانه وتعالى أهل القرآن نغدغو وحاك له شرف أغفرا قفك معلنك هيا قفك قرآنك آخرين هيا إنا تهي إهلك إلهي قول دوله إن لله من الناس إلهي سبحانه وتعالى ذاتك لا أيا قولوا له وخاصة الله سبحانه وتعالى أصحابته ويديانا وحيقول لهن هو إلهي خاص كوها رسولك إلهي وقبال من هم وحول رسوله عليه الصلاة والسلام أهل القرآن أهل الله وخاصة ذاتك أهل القرآن فيه وأهل إلهي وكو إلهي قال كوه إلهي سبحانه وتعالى كوه نودره إلهي سبحانه وتعالى دنبي ينيه وليكين دماغ الله ضعفه إلهي سبحانه وتعالى قرآن كدرجده إلهي أبتيس كله قلبي أن لا فهمسيه وحان آدو جعلها إن علماء الأول دعيا رنتي قبلها ونأكثر علمها كسود ذلك أن أرغنا بيئة يكونوا لهين علمها لون نقي كريم خطرتها كجرة قبلها يا معلمينها خاصة مع السلطان إساو سود القارية إلهي سبحانه وتعالى أبا القوة جنة الله كدوا جنة إلهي كدوا إلهي سبحانه وتعالى إنه مجلس كان خير كبانا كسر قريب قال يكون لو قدم من الله نقدوا وان ديري وانا ليال اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عدانا ولا تجعل مصيبتنا في الدين ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. ما شاء الله تبارك الله. سيجارة نصي حسنا يا ياسر مركان ما يعني 2015 16 ومعلم اللي والله يقرأ بيشيس ده صدق توان كيوان بسستان ما أنا سبتي الله يقرأ شغال مركان جلاس كيوها يري وحوك قبل وقت الهوست الجورة كنت سوى جروا يشري سيجارة عندي جرو مركان ما شاء الله عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you everyone for gathering here and being part of our celebration. I would like to start this speech off by thanking Allah because without the power and the might of Allah, this special day wouldn't be possible. I would like to thank my parents for helping me understand what I am capable of, for giving me the strength I needed to follow my dream, and for believing that I have the skills and potential to achieve my goals. There were moments where I wanted to give up and they wouldn't let me stop trying. They kept pushing me. My life without my parents' contribution is incomplete. In all phases of my life, they've always been committed to help in every way possible. I thank my parents today for the presence and the constant support. Today I'm using this opportunity to thank my parents as well as we all gathered here. I also want to thank my teacher who taught me the Quran when I knew nothing. And that alone is something that I am very thankful for. He provided me and a lot of other kids a place to practice the Quran and the religion of Islam. Not everybody gets to have a chance like this to have a place
to learn the religion of Islam freely, and for that I am showing you my gratitude. You also provided me with great classmates that were with me since the beginning, and some are here today graduating with me. They work tirelessly every day to ensure our success. It is critical to recognize and honor the teachers who have devoted their lives to better our lives.